السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada meel baa dunida dacalada ka joogtaan waqti walba idin tahay wanaagsan waa habeenkii ugu horeysay aan muuqaal toos soo geliyo bartayda YouTube-ka fadlan waxaan rajayn doonaa in dhalinyaro oo saaxiibkiina ahay inaad baalkan kor u qaadin meel fogna gaarsiisiin hilma hadal kuma jira lahay ama hadii caawa isla iga shakidaan oo salaad ninkan xoogaa hadalku isku dardara ma aha waa habeenkii ugu horeysay aan abidkay camera soo fariisto aan jeclaaday inaan wax idin sheego wax idin soo gudbiyo barnaamijna idin xiisa gelin doona ni wada inkana wacyi gelin noqon doona fadlan channel-kan subscribe dhaha meel fog gaarsiiya wax idinka dhibay ma jirto in dhalinyaro saaxiibkiina ahay calaamadaas guduudka taabo gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan wax walba halkan soo dhigo qaybta faalada commentiga ina imaatana igu dhiirigeli commenti dhiirigelina halkaas ugu soo qor waxaan ku sheegi doonaa 5 qodob oo muhiim ah oo hadii aad maanta yani santas qodob aad qaadato maanta naftaada wax badan ka bedeli doona horta qodobka koowaad waxa waaye inaad adigu isbarato horta adigu kuma tahay isqixdo maxaa qabsan kartaa maxaas ma sameyn kartaa kan ma sameyn kartid waxyaabaha xumaanta iyo waxyaabaha wanaagsan inaad kala garan kartid horta qodobka koowaad waa qodobkaas qodobka labaadna waxa waaye inaad yeelato hadaf marka yeelatid hadafkaaga aad ka dhabaysid naftaadana ku dhiirigelisid in hadafkaas aad degsatay aad horumari kartid qabsan kartidna waxa rabtaa aad samaysan kartid qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay inaad la imaato khibrado badan inaad barato waxay ka saaciidi doonaan maanta waa ognahay dhalinyarada qof walba maanta wuxuu ka cabanaa shaqo la'aan jirto kana jirto arday badan oo jaamacado soo dhameeyeen kuwa PhD maaha PhD nin weyn lagu garay kuwa master haystaan badge haystaan double badge haystaan ayaa kule maanta aniga guryaheena joognaayay waxbarashada maxay naga saaciday waxbarashadu waxay ku saacidi weeday ayaa waxa ah inaad lahayn wax skill ah waxbarashadaas soo baratay ama jaamacadaha ku soo baratana inay tahay wax iska suuraya oo adiga buugaag lagu soo baray waxa cilmi soo baratay way waxna waa cilmi waxna waa skills marka cilmigaagu ku anfici doona anigu ku dhimaayo wax cilmiya iskaga har cilmigaagu uu ku anfici doona qodobka ugu muhiimsan aan ku leeyahay waaye inaad skills samaysid walaal skills samaysid wuxuu ka saacidi doonaa bari kamaal marka shirkada u tagtid inaad maanta wax qaban kartid adiga shirkado badan ay jiraan hadeer oo magaalkan ka buuxaan oo shaqooyin u baahan dhalinyarada skills hala barto skills hadaa barato wax walba way ku fudaanayaan wax kastana inaad qabsan karto naftaadu ku dhiirigelin qodobka afraad saddexaad maray qodobka afraad ayaa wuxuu yahay inaad qodobka koowaad in noqon lahaa inaad samaysid ilaahayna ku xirnaatid ku xirnaashaha ilaahay ku abuurtay adduunka ku keenay naftaan ku galiyay ku uumay bilaadankan sharafta badan ka dhigay inaad mar walba xasuusnaatid oo ilaahay markasta awoodiisa waa u jeedaa luga gacmay af iyo indho iyo dhaga sano ku siiyay inaad ilaahay ku abuurtay markasta u xamdi noqdo ilaahay waxyaabaha caqabad markay uu qabsadaan inay xaqiisa u laabatid markastay muhiim tahay inaad ilaahay xaqiisa joogtid alxaq qodob kale oo muhiimsan jirto asna qodob aad iyo aad important ah yani qodobkaasna waxa waaye qodobkan oo kan ka horeeyo ku xiga oo aad iyo aad ugu loo yahay inaad salaada inaad xoojisid waa shay aad u muhiim ah tukatid salaadaada ducooyin badan akhrisatid sama quraanka akhrisatana marka aad iyo aad u mahadsantiin hadii barnaamijyo sida noocan oo kala oo dardaarna artaan inaan soo geliyo fadlan qaybta commentiga igu dhiirigeli oo soo qor soo hawaay soo badi ama de meel kala gudub maqaal kala soo wada jiraan safaro ku jiraan wadanka quruxdooda waxyaabo looga hadlayo ku jiraan documentary leh marka aad u mahadsantiin wabillahi tawfiiq channel-kan walaal subscribe meel fiican la gaarsiiyo
هل يدير قليو هدي أركو نمبر في عن نمبر في عن دا أركو وحواي قف كاس نمبر كاس في عنو أركو وكل يرنا إنه واحد بدن صوص مايو هذا ما ستين مقال كان كيس حجة